السلام عليكم كسو دو channel كهود التاجر هدي أد نقول عصب تهاي فضلا سو دو سبسكرايب كري هدي أد نقول عصبين أصحاب تسو دو هذا برنامج كأمانتك هاللينا وبرنامج آد وحيسله وبرنامج أتصاع عدستين وانا بيتكوين markii aan videoga Tesla aan soo dhigay aan sheegay Tesla hayga waxa ii gaday Bitcoin ama faa'iido ka timaaday Bitcoin ayaa dad badan isoo weydiiyeen sidee anakan investment u sameyn karnaa Bitcoin ku saabsan hudayso nooga soo jawaab Bitcoin waa maxay Bitcoin ka soo sheekay markastana ogaada mowduucyada aad soo codsataan marka aan arko dhowr qof ay hal mowduuc ku celcelinayso waxaan xooga saaraya in video aan ka soo sameeyo marka hadii ay jirto mowduuc sidaas kale aad u xiiseynaysid eena ku saabsan waxa aan uga hadalno channelkan waan soo duubi doona soo commentiga iigu soo qor sidoo kale hadii aad contentigan aad ka heshay like the body si aan u ogaado in aad ka hesheen oo mowduucyada ku ay aan sii wado barnaamijka maanta marka waxa uga jawaabi doona waa 3 su'aalood su'aasha koowaad ay tahay waa maxay Bitcoin su'aasha labaad ay tahay sidee u gadan karaa Bitcoin xagee ka gadan karaa su'aasha saddexaad waxay tahay xagee ku keedsan karaa saddexda su'aal hadii aad jawaabtooda arabtid fadlan videogan wada dhameyso eena like tahay iloobin hadii aad subscribe hore u saaran subscribe saar eena gaarsii meel sareeto marka waa maxay Bitcoin waxa waaye marna waa bangi marna waxa waaye lacag okay so marka bangi sidoo ku yahay inta taa ka hadlin waa ina ka hadlan lacagta kale to fiat-ka aad gacanta ku haysatid xaanshada marka maxay kaga duwan tahay taas lacagta maanta xaanshada aad haysatid waa lacag dawladeed dawlad kasta waxay haysataa bangi dawladeed la dhaho central bankigaas ayaa lacagta soo saaro oo markaas qiimaheedana xugmiyo sharciyeey oo dhaho okay $1 qiimihiis waa $1 waa way sharciyeysan tahay anagana marka shacab ahaan warqadan oo nuucaan u eg inay qiimahaas leedahay dawladda naga dhaadhacsiisay waa iska aamin qiimahaas waxay u tahay aaminitaan aan aaminin dawladda okay marka dawladda marka hal ledger ay haysataa ledgerkaas oo wax kasto transfer inta xawlaad iyo dhaqdhaqaaq lacagaha sameysdan ay ku duuban yihiin marka dhibka jira marka waxay tahay markasto laga hadlo markii fiat-ka ay tahay waxa la dhaho double spending wuxuu yahay dawladdaas markay lacag la'aan soo wajahdo ama lacagteeda ay ka qasaarto in iska dhigi karto inay lacagteeda wali ay haysato inay gadaalta ka baxdo lacag ay soo daawacdo dhibka weyn kaas waay mid kaleeto maadaama iyaga ledgerkaas ay haystaan shacabka aysan wax ka ogeen waxay noo soo dejiyaan maanta ayna dhahaan beenta kasta ay sameeyaan waa iska aaminayna maadaama dawladeena ay tahay aanan ka warqabin waxina aanan u jeedin okay so marka dhibka jiro waxa lacagta maadaama warqad ay tahay maanta waa la iska soo daawici karaa waa unlimited mid labaadne waxay ayaka manipulation iyo corruption ay sameyn karaan wixii anagu uma jeedno waa ina aamina hadalkoodi ayagana kor naga maamulo go'aankii soo dejiyaan waa ina raacnaa marka waa centralized wax la dhaho waa center meel laga haystaa ma fahanti yani waa wax dawladeed xukunka meel kale ka imaanaya anigu de ahaan ma kulihi saameyn weyn ma ku haysta okay so mid kale tan marka waxa waay ani ahaan shakhsi ahaan private marka isticmaalay markasta waa ina bangi aan isticmaalaa oo si qof kale marka la macaamiloonay waa inuu bangi noo dhaxeeyo maanta oo bangigaas waa system dawladeed waa inuu dhaxmarnaa qof hada waxa uu leeyahay qofkaas asigna waa inuu bangi sidaas oo kale u haysta hadii aan raba inay ciqaabaan ama si uun ay rabaan inay wax ii dareensiiyaan access-ka iga xiran karaan bangiga lacag igu jirta hadana kaararka iga cancel karaan ama waxay tahay lacagtaas waxay go'aansan karaan inay dhahaan lacag hebel waqtigaas ka bacdi ma shaqeynayso soo gudisoo baaki sharci noocaas oo kale soo dejiyaan marka gabi ahaanta markii hadalkii la soo koobo waa wax dawladeed oo dawlad ay xukunto oo dawladdaas hadii dawlad xun ay tahay corruptionka iyo manipulationka ay iska badnaan karto sida hadda Venezuela maxaa haysto lacagsi u daawacaan lacagtooda qiimo intee beeshay ayaa maba laga hadla hadeer maba la tiri karo lacagtooda waa la miisaamo heer meesii gaartay marka waan dhibka oo haysto markii wax hal meel laga xukumaayo hadii gacantaas xukumaysa gacan khaldan ee noqoto in waxay doonaan ay ka sameyn karaan marka Bitcoin taas ayuu xalinaya musuqmaasuq inaysan jaanis aysan jiri karin oo musuqmaasuq ay wax ku dhacaan aysan jaanis aysan jiri karin oo wax la soo daadaawaco maanta oo dhan hadaba sidee marka Bitcoin-ka waa tan sida marka Bitcoin-ka marka wuxuu yahay marna waxa waaye system bangi camal marna waxa waaye lacag okay hadaba system bangi sidoo ku yahay hadda bangiga central bankiga dawladda soo naga ma qarsan wixii ka dhaxdhacay ma isma anaga maya kan waxa waaye cid kasto u furan yahay
waad u jeedaa wix xawilaado meeshan dhan wada dhex maraayo daqiiqad walbo lacagta inta soo wada gashay ama lacagta dhan intee la wada egtahay bitcoin kan lacagta dhan intee la wada egtahay u jeedaa waa 21 milyan okay inta kamid ah maanta dhaqdhaqaaqooso daqiiqadan dhaqdhaqaaqooso meelaha kale aad u yiin waad u jeedaa wax ka qarsan ma jirto waxa kaliya aadan u jeedina waxay tahay qofka aan dhahno kaleeto lacagtaas daqiiqada ugu dambaysa xawlaada u jeedaa xawlaadaas qofkii shakhsiga soo diray iyo shakhsiga ee u socoto ma ogaan kartid inay tahay huddo inay soo dirtay cabdi u dirtay uma jeedid oo huddi cabdi magacyadooda kuma muuqato laakiin waa u jeedaa xawlaadi yani marka waxa way bangi oo adduunka qof kasto oo ka qayb qaadan kara macluumaadkiisa aysan cidna ka qarsaneen haddii aad isku daydid inaad manipulation ku samaysid ama hack ku samaysidna aadan ku samayn karin fa hal computer ma sida dawladda oo kale one ledger oo kale ma ahane waa intaas boqolaale ledger waay yani ma ku guuleysan kartid intaas in hack la sameeyo waa system aan la hack gareyn karin bangigana marka cid allaale cidii rabto adduunka aad isticmaali karto baadiyo joog ama magaalo joog so marka anoo maanta Sweden taagan ayaa qof Soomaali baadiyaheeda joogo waxaan u dirayaa bitcoin isla daqiiqadaasna ay u tagaysaa ma sameyn karaa lacagta caadiga maya waa ina haddii aan wax xawilaayo qofkas ku goorto uu bangi u haysta ee waqti dheer ugu noqota lacag extra la sii saarta oo la dhaho waxa sameynaysa international transfer fee extra dhiibeysa ma fahantay iyo 21 milyan haddii inta la wada qofkas intuu qabsado oo ay dadka ay wada gaarto ee gurigooda ay ku qabsadaan gacanta ay ku haystaan sidoo kaleeto way dhamaatay wax kaleeto ma jirto ما فهمتي يعني وحاوي وح أو مركل الصداع كم مركل وحال لا متديجي كرا ذهب مركل سيستم كان وحاوي سيستم كدتك ودمياش بدنا سيدا أت أفريقيا كلت آد وسي أنفعايو كلت ما دام حاجة إيه بجريمبو إن سيد صوماليا كلت بنجيال سنترال بنجي وحياوس كلت إيه بجريمبو لوجو تناسلو قف كست صندوقي صندوق فورتو دتك إيه جابو وحوده ما مورناي بنجي كلتو وما بباهنا بو marka bitcoin-ka markii la soo gaabiyo sidaas ayuu yahay waa decentralized waxa way limited waxa way transparent wax kasta macluumaadka dhan waa waad heysata oo kaama qarsano oo cidna banku ma soo alifayso dawlad waxa ugu muhiim waxa dawladna ma iska lahan oo dawlad ma soo daawaco soo dhahooso bitcoin ana iskale qiimihiisu intaas oo joogay ani aamina bitcoin 1 bitcoin waa intaas wax ma ka gadanaysid saas u fikir maya kan waxa ani adiga qiimaha iskale ani adiga qiimaha go'aaminoono 2015 ko kale markii dadka dhan ay wada aqoon oo la isticmaali jirin jeep wax raqiis oo ahay hadda markii anaga dhan wada rabnane baaki rabitaankeena qaaliyeenay laakiin mar dhowne waxay noqon doontaa in ku noqdo inuu normal iska noqdo sida internetka camal ee nolosheen ay kamid tahay marka mid kale waxa la dhihi karaa waxa internetka markuu soo baxay sidoo ahay ayuu yahay bitcoin marka waxa la dhihi karaa the internet of the money yani internet ma qof baa iskale adduunka meel shaaribtidna soo kama isticmaali kartid oo saqiiri kabiir faqiiri taajir ma loo kala xigsan yahay bitcoin kan waa sidaas oo kaleeto maadaama technology-ga ee saas oo kaleeto ee muhiim u tahay waa ogtahay in mustaqbalka in la isticmaali doono marka hadaba xagee bitcoin-ka ka gadan karaa bitcoin-ka waxa ka gadan kartaa brokerage ayaa jirto oo crypto xooga saaro waxa kamid ugu weyn oo international oo meel kasta aad ka isticmaali kartaa Coinbase oo aan nafsad ahaanteed account ku leeyahay aan ka gato Coinbase ayaa ka gadan kartaa Coinbase marka gadatidna Coinbase ayaad ku kaydsan kartaa hadii aad maalgelinta aad bitcoin ku sameynayso aysan badnayn Coinbase ka ku kaydso hadii laakiin ay badan tahay meeshaas kaydsigaas kuma fiicno waxaad ku kaydsataa meel adag ku qaasa meesha adag ku qaaska marka maxaa way bitcoin marka wuxuu ka rabiyaa wax la dhahaa bitcoin sanduuq loogu talagalay bitcoin sanduuqaas marka waxa jira mid hardware aad soo gadan kartid aad gurigaaga dhigi kartid sida daani asmi waxaan haystaa mid la dhahaa Trezor 1 hardware baaki kaas ayaa isticmaalaa marka taas macnaheedu waxa way bitcoin kasta aan gato mees ayaan ku shubtay markaas gurigaygu ii yaala si adi dahab ama dhigta camal hadaa rabtidna wuxuu kugu jiri karaa brokerage-ka aad ka gadatay laakiin anigoo kaleeto dan iguma jirto maadaama investmentiga waqti hore bilaabo oo hadda investmentiga kor u kacay oo la dhihi karo wax oo value fiican laha meeshan ku jirto marka kuma aamini kari inaa Coinbase kaleeto aan kaga shubto maadaama aniga sanduuqas furihiisa aan haynin oo sanduuq furihiisa Coinbase ay leedahay
marka furahaas sanduuqaas ayaa laga hadlaa qofka marka sanduuq ay u baahan yahay. So marka Coinbase ka gadanay Bitcoin ka wuxuu yaalaa Coinbase ka kadata Coinbase sanduuq uu haysta sanduuqaas oo ku haysan kartaa laakiin haddii Bitcoin ka uu badan yahay sanduuqaas kala bax sanduuq oo adiga ku private ku shubo. Hadaad diversity sameynaysid waxaa jirto cryptocurrency digital currency tira badan ayaa jirto. Waxaa jirto Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Ledger. adiga sky's the limit. Cardano waxaa artida investment aad ku sameyn kartaa hadaad inaad si kala macniis. Barnaamijkeenana xaggaas ayuu ku ekaa. Hadii aad inta ila soo gaartay waa mahadsantahay. Contenting hadii ku cajibisay like saar, subscribe kana ha iloobin. Hadii aad jirto mowduuc aad xiiseynaysid aad rabi lahayd inaad ka soo hadlane hoosta iigu soo qor. mahadsanid.